maanta xaqaayad oo xaqiiq ah weeye colaad dhex taala garxaajis iyo harti inaysan jirin dagaalkana maaha dagaalkeenii laakiinse waa dagaal layna gelinayo kana dambayso Muuse Biixi dadkuna inay taa ku baraarugsanaadaan baa la doonayaa waa ka mahadinaynaa intii hore baaqyada u soo saartay dhanka garxaajis iyo xaggaas dhankaygana waxa ka soo jawaabay oo yana baaqyada saasoo kale u soo diray odayaasha beelaha harti haday joogaan Boosaaso iyo haday joogaan Garoowe iyo hadduu ismada dhaqanka kale ee Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam uu kamid ahaa oo runtii ay loogu ekeydba baaq ahaan in lagu socdo laakiin taayid maanta waa taakiidis runtii waa arkay odayga kamid odayaasha dhanka beesha Habar Yunis sida ninka la dhaho ii sheegay Suldaan Cismaan Madar oo runtii anagu aan ku ogeyn talada Habar Yunis taladaasna aan ku ogeyn inay ka goodo kuna dambayso Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani hadalkiisana waa dareenay inuu maanta isaga laftigiisu kamid yahay raga ku xiran Muuse Biixi ee colaadna meesha ka abaabulaya mid hore loogu yaqaanay ahayd geestayadana aan u tirinayno inuu ka dambeeyay ama mas'uulba ka ahaa shaqaaqadii iyo dhibtii ka dhacday Kalshaale marka tayisa la qaadan mayno kulana tartan mayno ilaahay meel kale ha ka siiyo dadkayga deegaanadayda ama harti ha noqdaan ama garxaajis ha noqdaan waxaan ku baaqanaa nabad inay ku wada noolaadaan nabad ku wada joogaan inta ergaabana iyo intoodaas inay nabadooda ilaashadaan cid meel kale uga soo dakaaminaysa colaadna aysan u dhaga nuglaan iskana fahmaan maanta xaajada tan dhex taala maanta laga dhex abuuray inaysan ahayn mid iyaga dhexdooda ka timid ee la soo dhex maray insha Allah bidna karin waan ku soo ducaaneynaa inuu Ilaahay nabad idin dhex dhigo beerkiina burcad isku mariyo annaguna saasaan idin ku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh